maanta waxaan halkan uga dirayaa hambalyo shirkadda Hormuud adeegeeda loo yaqaan EVC-ga oo 10 jirsaday waxaan leeyahay mabruuk sidaad ogtihiin adeega mobile money loo yaqaan lacagaha la isugu diro EVC wuxuu adeegii ugu horeeyay dalka laga hirgeliyo muddo 10 sanadood ka hor ilaa hadda oo muddo inta la ka soo wareegtayna macaamiisha wuxuu yahay bilaash isticmaala waa adeeg halbowlo ah macaamiisha isticmaasha iyo guud ahaan dhaqaalaha dalka gaar ahaan financial sector-ka iyo macaamiisha ku xidhan adeegaas wuxuu fursad u siiyaa dadka inay iyagoo isticmaalaya mobile money-gooda la wax ku iibsan karaan qof lacag u diri karaan iyagana loo soo diri karo waxaa lagaga baxay dhibaatooyin badan oo qofku marka uu cash isticmaalayo ama lacag cadaan ah la soo dirsan waxaa ka mid ah inuu mar walba raadiyo sarif waxaa ka mid ah inuu lacagta qaado oo uu mararka qaar risk uga iman karo isagoo ay tahay inuu bangi ama mar walba aado qofkan isagoo meeshuu doono maraya ayuu mobilka jeebkiisa ku jira adeeguu doono ku qaadan karaa shirkadda Hormuudna waxay ahayd noqotay shirkaddii ugu horeeyay ee qaadata laysanka ama ruqsadda adeegan mobile money-da waan u hambaleynayaa mar labaad shirkadda Hormuud waxaan u rajaynayaa guulo intan ka waaweyn waxaan ku ammaanayaa sida dhow agarlaanta ay ula shaqeeyaan department-ka u qaabilsan supervision-ka mobile money-da oo ay si joogto ah uga wada shaqeeyaan sidii adeegan looga ilaalin lahaa halis ku timaada macaamiishuna u heli lahaayeen adeeg intii ka sii badan waxaan kusoo gunaanadayaa mar kale mabruuk